wasiirka dib u dejinta Somaliland Axmed Cabdi Kaahin iyo wasiir ku-xigeenka amniga Somaliland Ali Maxamed Cilmi ayaa maanta soo gaaray magaalada Saylac iyaga oo ka soo kicitimay dalka Djibouti oo maalmihii ugu dambeeyay ay safar shaqo ugu maqnaayeen waftigan wasiirada ah ayaa waxa duleedka magaalada kaga hortagay barasaabka gobolka Salal Cabdirasaaq Waaberi Rooble barasaab ku-xigeenka gobolka Cabduqaadir Aadan Yuusuf maayir ku-xigeenka degmada Saylac Saacad Daahir Cige madaxda ciidamada kala duwan ee gobolka xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Saylac iyo mas'uuliyiin kale ka hor intii aanay kulanka la qaadan madaxda laamaha ayaa waxa ay socod indhayna ku soo mareen xarunta ciidanka ilaalada xeebaha ee gobolada Awdal iyo Salal halkaasi oo ay salaan sharaf kaga qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha waxaana halkaasi warbixin ku siiyay gudoomiyaha gobolka Cabdirasaaq Waaberi Rooble way noola shaqeeyeen sidii police ahaan oo shaqeeyaan oo booliska way wada shaqeeyaan hawlaha ugu badan ee meeshan yaali waa tahriib badda laga talaaba min koonfur ilaa Ogaadeniya ilaa matqana Itoobiya kilalka shanaad ilaa Somaliland teena dadku way ka yimaadaan oo wada furan baa heed meeshu muddooyinka dambe waanu aad baan u xakameynay waa la qabtaa ciidanku aad baa u shaqeeyaan waana ku mahadsan yihiin hawlaha ugu badan ee qabtaan waa taa waxay ilaaliyaan badda waxalla wixii sharci darro doon ku soo gasha way soo qabtaan gacanta ku dhigaan halkan waxa yaala doonyo badan oo kuwii tahriibtaanu ku qabanay oo maxkamaddu ay xalaaleysay kuwa mataqaanay siyaabo kale oo tuugaanu ku soo qabanay oo maxkamadaha ee gobolka xalaaleeyeen wasiir ku-xigeenka amniga Somaliland Ali Maxamed Cilmi iyo wasiirka dib u dejinta Somaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa aad ugu amaanay ciidanka ilaalada xeebaha hawsha adag ee ay hayaan runtii anagu markii hore waxaan ku nimid Djibouti hawl bareefada aanu tagnay kale wasiirkii dib u dejinta oo geerida ka soo qayb galay mar haddaan dalka soo galayna runtii inaan de waxyaha dawladda iyo wixii jira ka gobol ahaan la sii eegno ayaan goosanay waxaan isku adkaynayaa ina hawshii qaranka u haysteen hadaatiin waxyaha dawladda haday noqoto ciidamada coast guard-ka ee badda biliiska haday noqoto hay'adaha uu madaxda ka yahay barasaabka ugu horeeyo inay waajibkiina qaran gudataan runtii wixii xog iyo xogaalna siiseena waanu geyn doonaa hadii la yiraahdo caasimadii iyo maamulada qorsheynayay ciidanka mareedana aad baan ugu amaanaya maxaan ku dhahay tahriibtan ay aad soo qabteen tahriibtan aan balay keenay anigu baasi masaafuriya marka la keenaba wax kale oo ku geyn jeelasha daan ku gurnada jeelba wax noo qaaday waa oramada wadayaacayse waan ku amaanintiin laashashkay iyo waxana qabateen aad baad ugu amaanintiin dawladana waa gaarsiinayna naga sii sareysay wixii baahidiina iyo wixii dhibaa waa gaarsiinayna intaasi kadibna waxa ay kulan isxog waraysi ah kula qaateen hoolka shirarka ee dawladda hoose ee degmada Saylac maamulka gobolka iyo maamulka degmada Saylac kulankaasi oo ay saxaafadu dibadda ka joogtay ayaa markii uu soo gabagaboobay waxa bahda wardoonka la hadlay gudoomiyaha gobolka Salal iyo wasiir ku-xigeenka amniga Somaliland Ali Maxamed Cilmi iyaga oo ka hadlay xiritaanka xuduudka Somaliland ay la wadaagto dalka Djibouti waxayna yiraahdeen maanta halkan aanu fadhino Saylac hoolka dawladda hoose wuxuu ahaa shir xog warana oo aan wasiirada socda wasiirka amniga wasiirka dib u dejinta aanu uga xog warameynay hawlaha gobolkan matqana Saylac runtii oo go'ah gobol xasaasiya gobol xad la wadaaga saddex wadan dhinacan Yemen dhinacan Djibouti dhinacan matqana Ethiopia runtii xog waran aanu siinay bahay waxaanu shalay tooliyo ee meediyaha gelinay in xadka Djibouti wax la naga weydiiyay xadka Djibouti ma xidhna waan ku celinayaa maantana lama xidhin si official looma xidhin waa la hakiyay
waanu furmaya sida ugu dhaqsaha badan leh hadii ilaahay dhaahdo waa furmaya maalmahan ama maanta ama bari ama sahan dambe waa iska furmaya sidii caadiga ah hawluhu socon doonaan waa xaalad nabadgelyada ku saabsan ma aha xaalad dhib leh waa xaalad nabadgelyada ku saabsan oo amniga dadka lagu adkaynayo ayaa arintaasi u sababa hadaan u leexdo waan weydiinay maamulka Djibouti xadka inta uu xidhnaanayo sanbuu yahay xidhnaanaya masoo furaya hawshan nabadgelyo ay sheegeen waxa ogtihiin in wadamada jaarka ay nahay Soomaaliya uu qarax ka dhacay sadarteed iyaguna iyagoo hubinaya bal wixii xuduudada ka soo galaya ayuu hakiyeen saakaba waa la sii daayay si ballantu ahayd aan shalayna kala hadalay qolada ku shaqaale xuduudda qaybta nabadgelyada wixii qudradaha ama caani geli jiray iyo wixii kale adeegii laakiin wixii kale insha Allah bariya saakadeedina iyagana ay fasaxaan baa ayaan isku ognahay TV-ga caalamiga ah ee Somali Channel oo wax ka weydiiyay wasiirka amniga bal in ay xukuumaddu wax ka ogeyd xiritaanka xuduudda u dhaxaysa dalka Djibouti iyo Somaliland iyo sababta keentay in iyana la xiro xuduudda wajaale ee u dhaxaysa Somaliland iyo Ethiopia ayaa waxa uu ku jawaabay maya arka waxa weeyaan kulli runtii waxaan filayaa in arrin xaggooda nabadgelyadooda ay taxadir u sameeyaan ayuu ahaa laakiin arrin laga wada hadlay ma wahayn sidoo kale waxa lagu maqalay inay wajaale in xiran tahay ma hubo laakiin anigu tan soo maray imka waan ka maqnaa laakiin inuu ogaan doonaa maadaama aan kana muddo wajaale aan ka sukiyay ya caasimaddiiba loo week وعلي حجر Somali Channel مقالة سيلاع